dawadeel kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Axmed Madoobe oo ciidan iska soo hormariyay kuna soo jeeda Muqdisho. Farmaajo oo hal arin kaga duwan Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed. Ismaaciil Cumar Geelle oo jawaab ka bixiyay arintii ay ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland oo amar culus ku soo rogtay shacabka Garowe. Ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. ciidamadan oo aad u huweysan ayaa wata 3 cabdi bille oo loo soo diyaariyay waana ilaalada gaarka ee Axmed Madoobe. sidoo kale sacdaha soo socda ayaa lagu wadaa inuu Muqdisho soo gaaro Axmed Madoobe iyadoo soo dhaweyntiisa laga dareemayo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. mas'uuliyiin kala duwan oo haatan ku sugan qaybta VIP-da garoonka kuwaasi oo diyaar u ah soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa halkaasi jooga. Axmed Madoobe ayaa ka qayb galaya shirka dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada kaas oo ka dhacaya teendada Afsiyooni oo ah meeshii lagu doortay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse waqtiga uu ka dhamaaday. shirka wada tashiga ah oo ku soo aadaya xilli xasaasi ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa ismarwaaga weli ka taagan doorashada 2021 iyadoo sidoo kale magaalada Muqdisho uu imaanayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku sugan Villa Soomaaliya hal bil iyadoo aysan jirin wax heshiis doorasho ah taasoo ka dhigan arin ugub ku ah dalka. shalay ayay ahayd 8 Maarso waxaana dhamaatay bil kaamil ah maadaama muddaxileedku uu soo dhamaaday 8 February walina ma jiro heshiis loo wada dhan yahay oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka. tan iyo markii ay Soomaaliya ka baxday dowladii ku meel gaarka ahayd sanadkii 2012 ma dhicin inuu madaxweyne iska fadhiyo xafiiska iyadoo muddaxileedkiisa u dhamaaday haddana aan heshiis lagu hayn hanaanka doorashada. Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii 8aad kana horeeyay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu arrimaha doorashooyinka heshiis ka gaaray iyadoo muddaxileedkiisa uusan dhamaan. iyadoo ay arintaasi jirto haddana su'aalaha isweydiinta leh waxa ay tahay rajo ma laga qabaa in la gaaro heshiis doorasho oo lagu wada qanacsan yahay. khilaaf badan ayaa ku hareereysan heshiiska doorashada waxa ugu weyn waxa ay tahay in la dhaqangeliyo heshiiskii 17 Sebtembar si loo gaaro heshiis doorasho ay ku qanacsan yihiin madaxda maamul goboleedyada mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. mucaaradka waxay doonayaan in heshiiska laga qayb galiyo walina la isku raacin arintaasi. waxaa jirta tabashooyin badan oo ay ka mid tahay arinta gobolka Gado xildhibaanada gobolada waqooyi iyo sharci la'aanta Farmaajo oo wali la hadal hayo. arrimaha kale ee ku hoos jira waxyaabaha xildhibaanka doorashada waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda dalka iyadoo mucaaradka ay ka walaacsan yihiin sida ciidamada ay u dhaqmayaan iyo Farmaajo oo kaliya amarkiisa ay ku socdaan. si kastaba Farmaajo wuxuu aqalka dalka loogu talgalay ku jira hal bil oo aan sharci ahayn walina ma laga heshiin arrimaha doorashooyinka. sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uma muuqdo mid qaadan kara kaalintiisa hirgelineed waxyaabaha horyaalla ah in uu dalka ka saaro marxaladan kala guurka ah. lama ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray amar ku socda dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal siiba dadka socdaalaya ama safraya ee ku sugan Nugaal iyo sidoo kale guud ahaan Garowe. booliiska Garowe ayaa sheegay in qof kasta oo soo galaya ama ka baxaya Garowe loogu baahan yahay damiin ka hor inta uusan safrin ama soo galin gudaha magaalada. sidoo kale booliiska ayaa arintaasi ku sii daray in qof kala doonayo inuu cadeeyo ujeedadiisa ugu baxayo Garowe ama uu soo galayo ay muhiim tahay. qofka soo galaya ama ka baxaya Garowe waxaa laga doonayaa inuu keeno damiin isla markaana cadeeyo ujeedada uu ugu baxayo ama u soo galayo magaalada ayuu yiri Axmed Maxamuud Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska Puntland. arrintan ayay Puntland kaga ogol leedahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga loogana hortagi lahaa suurtagalnimada weerar ka dhaca halkaasi. ugu dambeynna madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay eedeyntii dowladda Soomaaliya ay u jeedisay Jabuuti kadib markii guddi ka socday ay warbixin ka diyaariyeen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la baarayo fargelinta iyo abaabulka jabhadeysan
oo ay ka cabatay dowladda Soomaaliya. gabagabadii sanadka 2020 waxaa cirka isku shareeray xiisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. waxaa dowladda Soomaaliya ay ceerisay wakiilkii Kenya ka joogay Muqdisho iyadoo ku eedeysay inay fargelin ku hayso arrimaheeda gudaha. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Uhuru Kenyatta ayaa bishii December ee sanadkan isku arkay shirkii IGAD ee ka dhacay dalka Djibouti, waxaana kulan ay yeesheen ku helinayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxda urur goboleedka IGAD Djibouti ayay xilligaasi u xil saareen in ay dadaal ku bixiso sidii loo dejin lahaa xiisadda heerka sare joogta ee Soomaaliya iyo Kenya. maalmo kadib waxay Djibouti xuduudda labada dal u dirtay guddi xaqiiqo raadin ah kaas oo soo baaraya waxa ka jira eedeyntii ay dowladda Soomaaliya u jeedisay Kenya. warbaahinta gobolka ayaa baahisay nuqul ka mid ah warbixintii uu diyaariyay guddigaasi, waxaana weji kale yeelatay xiisadii jirtay. dowladda Soomaaliya ayaa ka corootay natiijada warbixintii guddiga ay Djibouti u dirtay halkaasi. warbixinta waxaa ku xusneed inay waxba kama jiraan yihiin inta badan eedeymihii ay dowladda Soomaaliya u jeedisay dhiggeeda Kenya. Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Djibouti, ayaa sharaxay sababtii uu dowladda Soomaaliya ugu jawaabi waayay markii ay ka carootay sida ay Djibouti u wajahday khilaafkii Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Djibouti cid kala kaxeyn karta ma jirto. tan labada howshan waxay timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo bandhigay shirkii IGAD oo la yiri idinka ugu dhow bal soo eega. waan iska diidi karnay oo waan oran karnay cid kale u dirsada, laakiin kalgacal baan u ogolaanay ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle asagoo u laabqaboojiyay dowladda Soomaaliya. Ismaaciil ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya uusan kala dhaxeen wax dhibaato ah oo na rajeynayo wax walba in xal laga gaaro. wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa.